shirbeel ka mid ah beelaha dega galbeedka gobolka Sanaag uga socday deegaanka Faraguul oo ka tirsan degmada Garadaga galbeedka gobolka Sanaag ayaa maanta lagu soo gabagabeeyay isla deegaanka Faraguul ee degmada Garadag shirkaas oo lagaga arrinsanayay arrimo u gaara beesha waxaana madasha lagu soo xidhayay ka soo qayb galay suldaanka guud ee Barra Cabdiraxmaan Suldaan Sharmaarke Suldaan Maxamed dhankoodana waxaa ka soo qayb galay cuqaasha degmada maamulka degmada waayeelka degmada taliyaha asluubta gobolka Sanaag taliyaha booliiska degmada Garadag oo bogaadiyay qodobada ka soo baxay shirka waxaana ugu horeyn qodobada shirka ka soo baxay halka ka jeediyay gudoomiyaha gudida khilaafaadka ee beesha Siciid Jaamac Geney dhankiisana waxa waana baahiya ay tabanayso magaalada Faraguul ka jeediyay xildhibaan Aadan Xaaji Axmed oo ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka ee degmada ahna xildhibaanka beesha shirkan oo ka qabsoomay tuulada Faraguul degmada Garadag magaciisu wuxuu la baxay tala wadaag go'aamada shirka ka soo baxay koow ku dhaqanka shareecada diinta islaamka waa go'aamada ay isla qaadatay beeshu laba beesha Faarax Maxamuud waxay isla qaadatay inay nabad iyo wanaag kula noolaato beelaha deriska ah ee ku xeeran iyo dhammaan beelaha Soomaaliland beeshu waxay isla qaadatay taageerada madax bannaanida jamhuuriyadda Soomaaliland sidoo kale beeshu waxay si mug iyo miisaan leh isula qaadatay midnimada beesha Faarax Maxamuud dhinac kasta oo ay leedahay beesha Faarax waxay beeshu isla qaadatay in la diyaariyo inay diyaar u tahay midnimada beelweynta reer Yidli aanada ay beeshu ka soo saartay shirkii muddada labada maalmooda haddaba waxaanu ilaahay aad ugu mahadnaqaynaa inaanu gaadhno heshiiska idina maqashiino maadaama oo muddo dheer waxaan kaloo salaamayaa marti sharafta la soo ixtiraamtay ee naga aqbashay casuumadii aanu u fidinay tuulada Faraguul waxaanu aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ilaahay waa mahad leh hadaanu ilaahay loo mahadcelin bini'aadamkiisana loo mahadceliyo waxaan kaloo mahadnaqayaa suldaanka oo meel dheer ka yimi oo dee khilaafaadka u yimi oo soo xalilay khilaafaadkii taagnaana waan mahadnaqayaa uu fog yahay uu ka kala fog yahay halkaana Sincaruu soo jooga xaggana Goosweynu soo jooga kulley hadalkiisuna wuu socday in MCH loo dhiso miisaaniyada uu ku jiraan waa leeyahay kulley maayarkiina wuu jooga waxaan ugu kacay inaan ogeysiiyo in labada baahiyood maanta baahiyuhu way iska badan yihiin lama gaari karo inaynu labada baahiyoodna aan halkan ka sheego hadalku ma badna waxaan halkan uga kacay shirka tala wadaag ee halka lagu soo gabagabeeyay go'aanada ka soo baxay waanu isla qaadanay waana ku heshiinay waana waxaanu idinka mahadcelinaynaa marka hore shirkan waxaan ku soo dhawaynayaa fadhi kasta oo marti sharafa oo suldaanku ugu horeeyo oo isagu beesha tan hogaaminayo turxaan saarkeeda ka ugu horeeyo wax ka qabtay wax ka dhameeyay ahaa xubnood oo kale lixdiina xubnood kalena ku soo dhawaada beesha Maxamuud gaar ahaan marka hore beesha Faarax Maxamuud ee halkan shirka ka qabatay gaar ahaanna anigoo caaqilkeedii beesha Maxamuud ku soo dhawaada taliya dhammaantiin inta leegtiin ilaahay waxaan ugu mahadnaqayaa idin kala ducaynaya gaar ahaan iyo guri ahaan iyo guud ahaanba inuu ka ducaynaya idin kala gaar ahaan idinku sii ducaynaya wixii dhacay ilaahay inuu ka cafiyo
wixii dhacay mar labaad iyo mar koobaad iyo mar saddexaad ba ilaahay inuu ka cafiyo turxaan saarka ay sameeyeen shirka ay qabteen quruxda badan waana sugaynay waana ku mahadsan yihiin aad iyo aad bay ugu mahadsan yihiin waana soo dhawaynaynaa waa marka hore awalan waxaan u mahadnaqayaa ilaahay weyne waaxidka halkan gartay madashan inaynu isugu nimaadno turxaan saarka ah ee xigtadu ku heshiisay alla barigu yaallo ilaahay weyn baan ugu mahadnaqaynaa marka hore mar labaad waxaan u mahadnaqayaa beesha faarax maxamuud yiidle ee gogoshan dhigtay ee xoogaa isturxaan saartay ee waayeelkoodii iyo tolkoodna u yeedhay ee ilaahayna suldaankii keenay iyagana aad iyo aad baan ugu talaan kadib runtii waxa farxadoo ah ama aniga farxadiya inaan ka soo qayb galo shirkan tala wadaag ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Faraguul ee ay qabsadeen beesha Faarax Maxamuud runtii farxad aan la soo bikarin bayta waxaan leeyahay markii aan dib ugu noqdo go'aamadii shirka oo ay ugu muhiimsanayd marka laga yimaado cabsida ilaahay iyo diris wanaagga midnimada Faarax Maxamuud iyo Tabba Maxamuud iyo Tareeriidlaba aad bay alxamdulilaahi rabbil caalamiin weeye maanta Faarax Maxamuud oo halka joogo midaysan ilaahay baan ugu xamdinaqaynaa iyo caafimaadkiisii iyo waxqabadkiisii iyo noloshiisii saxaayad si saay kuma la khayr ilaahayna waxaanu idinka baryaynaa inuu sii socdo wanaagga aad soo abuurteen xumaanta aad suuliseenna ugu horeyn waan ku faraxsanahay midnimada Faarax Maxamuud khilaafkii yaraadan uu khilaafkii ormaayay dhaxgalay iska saarteen adan ugu faraxsanahay waxaan ogaataan sida Axmed Jaarba sheegay reeyla waa jir qura markii Faarax Maxamuud siyara khilaafay reeyla faalig baa ku dhacay Faarax Maxamuud annaga isqabadkiisa xanuun buu nooha because the saldanadii Barada Raxmaan baati haddii saldanadii isqabatana Barada Raxmaan la jiri maayo biidan jiri maayo waa la isqabanaya hal isqabtee laakiin waxa uu fiican isqabadku inuu meel qaar aanu gaarin waxa jirta haddii waxa la yiri saddex shax baad qof ficil qabto amalka kala aqbali maayo ha tukanaysiin inta soo taysii abalada kama aqbalin salaadii soontoona garabina ka maqan oo runtii aad iyo aad aynu arkayno inaynu naafaysannahay buu horta ahaadee ba Maxamuud bada wanaga maqnay ba Maxamuud ba alxamdulilaahi rabbil caalamiin waa ugu yaraabalay Maxamuud idle wixii idle ay Soomaaliya ya welina wuu ahaadee hadalka badin mayno soo koobaynaa aad iyo aad baan u mahadsantihiin ragga gogoshan geedka qabowdhiga waa gobku waa ka qiimo badan ee dhirta kale gobbaaba la yidhi wixii hoos fadhiistaan insha allah gobbay noqonayaan aad baa u mahadsantihiin gogoshana maanta dhigteen isugu yeedhkana reeda isugu yeedheen isugu yeedhkana allabariga ku samayseen aad iyo aad baa u mahadsantihiin aad iyo aad baa midnimada ugu mahadsantihiin Faarax Maxamuud waa la ogyahay Faarax Maxamuud waa shafki nugaaleed beelaha darafyada ee deegaan nugaal waxaa lagu axman jiray oo aan lagu majeeran jiray inay yihiin beesha keli ah ee ummaddu waxay ku leedahay hal mar iska wada bixin kartaa cid kasta oo deegaanka cid kasta oo degmada ag timaada ila weyne cid kasta badan baa ku jirta oo waxa aad iyo aad looga mahadudooba taasina waa mahadnaq qaara waxa mar labaad iyo mar saddexaad ba ka mahadudoobayaa shirka magaca weyn leh ee beesha ku midowday ee walaalahoodba Maxamuud ku sii socdaan ee ila weyne kor uga baxayaan banaad aad weynta Faarax Maxamuud arrimihii iyo khilaafkii ka dhex taagnaa soo dhameystay khilaafkaasi haddaanu ka golo deegaan ahaan iyo degmadaba wuxuu ku keeni jiray saameyn aad u weyn ee ilaahay mahadi mar haddii maanta ay soo dhamaatay horta aanu farxad baan la gelinayaaba run baan idiin sheegayaa 3 bilood baan la joogay 3 bilood 3 biloodna yoolka iyagu haystay Faarax Maxamuud oo yoolka dawladdu haystay waliba taliyada qaybta halkan maanta waxaan uga sheegayaa Faarax Maxamuud heshiiyey gogasha quruxda badan ee fadhiga quruxda badan ay dhigeen Faarax Maxamuud Faarax Maxamuud iyo Ba Maxamuud ba
dhibaatadii ay iska saareen si gaaraan ugu sii ducaynaynaa de waxba waa dhaqaaqi waaye wax walba way soo xadhimeen cuqaasha kale ma haysane de cid walba way haysato sidii loo shaqayn lahaa ayaaba de muran gashay arrintaan naga soo gebagabaysan khayr allah degmada tuulada iyo ragga kale taabtayba waxbaa nooga qoraadoo kolley waa miilaynaado labada arrimood waanu kala hormarinaynaa sidaan u kala hormarinaynana annaga ka wada sharayna waanu kala hormarinaynaa waana qabanaynaa insha allah bilmillahi kariim intaana gaar baan ugu lahayn ugu dambayntii waxaa hadalka soo afmeeray suldaanka guud ee barre cabdiraxmaan suldaan sharmaarke suldaan maxamed suldaan cabdi ayaa hadalla dhaxalgelaya ducaye dardaaran ka jeediyey munaasabad uu shaytaanku necab yahay ilaahay qur-aanka wuxuu inoogu sheegay asulxu khayr bay ku bilaamatay khayr bay inugu dhammaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin ilaah baa mahadda iska leh khilaafaadkaana way dhacdaa waxaa loo baahan si tolnimo ah in looga shaqeeyo oo daacadnimo ah wayna ku dhammaatay alxamdulilahi rabbilcaalamiin waa inoo ducaynaya ilaahay haynaga aqbalo ducada allahuma innaka qulta waqawluka alxaq ادعوني أستجب لكم وإنك لا تخلف الميعاد اللهم اجعل تجمعنا هذا تجمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا شقيا ولا محروما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا waa raan maxamed raan telefishiga caalamiga star t v degmada facaweyn ee gar adag